barnaamijkan waxaa soo agaasimay dhalinyarta Jubaland Tourism and Development oo ah sida magacooda ka aragtaan dhalinyar ka shaqeeya horumarinta Jubaland iyo sidoo kale dalxiiska waa barnaamij taxana noqon doono ama taxana ah dawladaha waddanka ka raali noqdo waxa la yiraahdaa dhiirigelin hal doorkaaga sanad walba qof ayaa lagu dhiirigelin doonaa aan u aragno inuu yahay hal doorka sanadkaas sharafayay tahay inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan oo halku dhigeedu yahay dhiirigelin hal doorkaada ay qabteen dhalinyarta horumarinta iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubaland waxaan leeyahay hal doorka sanadka ay u doorteen agaasimaha guud ee dhalinyarada Mudane Cabdiraxmaan Hambalyo waan la qabnaa maadaama uu yahay shakhsi dhalinyaro ah firfircoon karti iyo hal abuur ku sifaysan uu yahay si toosana uu yahay shakhsiga dhalinyarada matala dhammaanteen inteena baadaad u fiirsato shakhsiga sida dhabta noo matala oo habeen badhkii hadaad wacdo mar kasta hadaad wacdo kula hadlaaya duruufaha dhalinyarada oo ku xeeran wax kasta la socda Cabdiraxmaan waay marka waxaan rajaynayaa inuu noqon doono hoggaan dhab ah sidaan halkaan uu ka sii wadi doono soo kale in uu ka soo dhex muuqan doono liiska cusub ee sugayno insha Allah rajaynayna dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u badan yihiin dhibaatooyin kala duwan adduunka dacaladiisa isku haysta marka waxyaabaha looga bixi kara dhibaatooyinkaasi waxa noqonaysaa in dadaalo la muujiyo hawlaha noocan la abuuro it's not easy ma aha shaqo fudud in urur dhan in la sameeyo hadana la taabageliyo oo hal door la soo saaro waa wax arin aad muhiim ah oo miisaankeeda leh marka aad bay arinkaas muhiim u tahay adduunka waxa lagu bixiyaa abaalmarino kala duwan oo siyaabo kala duwan loo bixiyo laakiin Soomaalida inta badan waxa lagu tilmaamaa inay yihiin dad dream killers ah haddii aad rajo leedahay rajadaada in badan ku doodsiyo laha macna dara ka soo qaado oo macnaheeda lumiyo oo in badan aan ku dhiirigelino marka waxaan isleeyahay barnaamijkan hadda halkan laga bilaabay wuxuu noqon doonaa tusaale waxaan leeyahay hor loo socdo waan idinku dhiirigelinayaa tan xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan u hambaliyo afwan saaxiibkay Cabdiraxmaan Cabdi Xaaji oo ah agaasimaha dhalinyarada sportiga in loo aqoonsado inuu yahay hal doorka sanadka 2019 waa arin aad muhiim ah waan aqaana Cabdiraxmaan xilligii agaasimiyalka maalinta interview-ga sameeynay ayaan isbaranay wixii ka dambeeyay oo wada shaqeynna dhaxmartay badan marka waan ku kalsoonahay inuu yahay Cabdiraxmaan hal door inuu yahay Cabdiraxmaan nin dalkani wax ku soo kordhin karo Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay taariikh aad u fiican tusaale u noqon karta haddii banaanka loo soo bixiyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wadamada dacaladeeda ku fidsan Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay awood ilaahay uu og yahay laakiin qofkii aqli iyo xigmad leh uu dareemi karo Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay hal abuur badan oo isaga ku duugan oo qofkii la sheekaysto ama uu si dhabagala uu ogaan karo Cabdiraxmaan Hambalyo mar kale dhalinyaradan isku hawshan ay soo qaabisay maanta na tustay beej cusub oo aan ku sii tilaabsanayno waxaan leeyahay Hambalyo idinkana noocan oo kala qabtay isku ma aanan haysanin su'aalo badan ana isweydiiyay runtii kadibna waxaan aaminay inay tahay hogaamiyaasha iyo mas'uuliyiinta muraayada kaliya ay isku fiirin karaan inay bulshada Soomaaliyeed tahay marka waan xaqiiqsaday marka ay dhalinyarada dowlad goboleedka Jubaland qaasatan ururka horumarinta ay dhaheen Cabdiraxmaan waxaan ku aqoonsanay aad iyo aad aan uga mahad celinaya runtii hal abuur aan Jubaland hore maxaa la dhahay looga barin inay keeneen marka aan ka hadlayno dhalinyaradana inay dalkooda wax u qabtaan hal abuur ay la imaadaan tan oo kala ka mid ah runtii ana adduunka waxaan ka ogaa guddiga
guddiga nabadda iyo biladsiinta Norwegian oo la yiraahdo Norwegian Nobel Peace Prize oo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia hadda la soo siiyay marka hadda Jubbaland ay noogu imaato meel kale u doonanayna ma laha waa idin dhiirigelinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii tanna waxay ii tahay hididiilo waxay ii tahay maxaa la dhahay bilow cusub waxay ii tahay inaan dadaal cusub bilaabo waxay ii tahay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed duruuf walba dhibaato walba ciriiri walba aan nafsiyan i haysato inaan u heegan u noqdo noloshooda waxaan ka bedelo hoggaan fiican aan siiyo runtiina waa mas'uuliyad aad u weyn adduun iyo aakhirana la weydiin doono ilaahay hortiisana ku weyn bulshadana horteedana ku weyn